kala duwanaanshuhu waa mid mararka qaar sameeya micno gaar ah. waxaynu isbarbardhig u samaynaynaa laba shakhsi oo aad u kala duwan balse saameyn ku dhex leh bulshada caalamka. aynu ku horeyno Dheje Khalid. waa Falastiini da'diisu ay tahay 50 sano balse dhalasho ka haysta dalka Mareykanka. waa shakhsi caan ah wuxuuna awoodda saaraa sidii uu malaayiin dollar uga samayn lahaa shirkadaha waaweyn ee xayeysiiska. ninkan waxa uu gaaray heer uu kabihiisa dhulka u quuri waayo. waana ninkii hindisay kelmadda caanka noqotay ee qaada si uu iskaga ilaaliyo inuu isticmaalo labadiisa lugood. marka uu fadhiyo goroomadana waxaa lugaha loo saaraa barkin isagoo door bidaya qaalinimada kabaha uu xidhan yahay. ninkanina waa laacib madow ah, magaciisu waa Kante, daadiisuna waa 30 sano. waa nin aan qarash ku yarayn balse yaqaana meesha uu ka yimi iyo aafadii faqriga ahayd ee ka jirtay. Kante waxa uu iska diiday inuu xidhiir la samaysto shirkadaha waaweyn ee xayeysiiska, mana laha ilaaliyayaal khaasa oo uu malaayiin dollar ku bixiyo. markii uu joogay dalka Ingiriiska waxa uu garoonka ku tegi jiray mooto yar isagu ka haysto. weliba aan kugu daree waxa uu sii qaadi jiray cid walba oo caawin u baahan. sidoo kale ninkani ma haysta agab qaali ah oo uu isticmaalo sida baabuur, moobilo iyo agab kale oo uu isticmaalo. mar la weydiiyey sababta uu sidan u sameynayana waxa uu yidhi, anigu ma jecli in naftaydu ay hoggaamiso ama aan iska dhaadhiciyo shakhsiyaad kale. waxaan ahay nin aan jeclayn muuqashada badan iyo ka badbadinta. xataa waxaa la sheegay ninkan inaanu sheegin sadaqada iyo qaaraanka uu ku bixiyo waddanka uu ka soo jeedo ee qaaradda Afrika. Thank you, brothers. I appreciate it. You want to get in the back? Can't mess up the chase. I'm performing live right now.